Bismillahirrahmanirrahim. Halkani waa wadanitv.com oo aad ka daawataan barta internetka. Waxaan maanta rabaa inaan idiin soo qaado barnaamij aad u fiican oo ah xildhibaanadan cusub ee baarlamaanka. Bal cadaaladda halka ay ka taagan yihiin in la ogaado iyo qolyahan maanta isu soo sharaxay ee saddexda ka midka ah gudoomiyaha baarlamaanka oo la dooran doono. Haddaba waxaan rabaa inaan Soomaalida inteeda badan aan ka dhaadhacsiiyo inay maanta caalamka idin fiirinayaan oo ay arkayaan cadaaladda ninkan oo galayr ah. waxaa kaloo isagana tartanka Professor Jawari oo kan isagana shacabka soo jeediyay iyo Maxamed oo isagana aad aragtaan. Haddaba saddexdan musharax waxaan rabaa Soomaalidu baarlamaanka cusub inay caalamka maanta arkayaan cadaaladda halka ay ka gaareen oo ay ogaanayaan in dadkan ay qaran diyaar u yihiin madaxweyne fiican inay doortaan ay diyaar u yihiin. taasi oo macnaheedu yahay cadaaladiina iyo isnaantiina haddii aad doorataan Professor Jawahir ama Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawari ku magac dheer in aad noqonaysaan kuwa cadaalad ah oo raba inay madaxweyne dhaba ay helaan oo ummadda udubada ay u taagaan qarannimo kale iyagana ay wax ku noqonayaan. haddii laakiin ay aadaan galayr oo horey loo soo arkay maamulkiisii iyo waxa uu yahay ama ninka kaleento waxay noqon doonaan kuwa aan weli Soomaalida u bisnaan inay qarankii weli soo celiyaan oo ah inay khiyaano iyo weli ku dhex jiraan waxyaalaha loo yaqaan qabiil jeclaysiga. sidaa awgeedna waxay noqon doontaa in iyadana mustaqbalka Soomaaliya ay mugdi galo, waayo caalamka maanta diyaar uma aha inay taageeraan dadyow maamulka soo maray oo musuqmaasuq lugta ku soo yeeshay. waxay doonayaan waxay cusub. caalamka ayaa jecel in maamullo cusub dad cusub ay maamulka hanta ay qabtaan oo dadka maanta aysan qalbi jibinin hankooda guud ee ay doonayaan inay qaranka ku taageeraan. haddaba Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawari ayaan inagula talinayaa baarlamaanka cusub inaad doorataan. waxaan shaqo ku jirin haddii Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawari la doorto oo uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha qarankana uu noqdo Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaan helaynaa dowlad aqoon ka dheelitiran oo qaran ah oo dhab ah oo lugaha ku istaagta. waxaan noqonaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed kuwa hirgala oo aan noqonin oo noqdo inay qaranka diyaar u yihiin. haddaba ha isku dayaano inay dad tayo leh oo ay harsan karaan ama ay ku gaban karaan oo ay ku heli karaan inay qaranka mar kale ay soo celiyaan inay doortaan. ha ka fiigjignaado dadyowgii maamulkooda ay soo arkeen amaba ay aysan jeclaysi aysan u gelin oo cadaaladda ilaah baa jecela cadaaladda ay u dhawaadaan. waxaana idin rajaynayaa inaga oo doorto caalamkana idin daawanayaan Jawari oo noqon karto inay caddahay markaa in la dooran karo Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo qaran diyaar ah u tihiin. haddii laakiin wali uqdadii iyo qabiilkii iyo wixii darnaa idinku jiro oo ah keentaan dadyow horay bulshada ay u arkeen, bulshada diyaar idima aha, qarashna kuma bixin doonto. waxaana noqon doontaan kuwa 2 sano iyagana iska qabsada oo burbura kadibna dowlad kaleento oo la keeno dadyowgii kale haddana la rabay. haddaba jansiga ah haysataan baarlamaanka cusub waxa weeye labada Professor inaad doorataan. haddii idin taa dooranina waxaad noqon doontaan kuwa 2 sano kadib iyagana burbura. wax lacag oo aad sugaysaan ma jiraan ama Soomaali meel dhigatay. waxa aad sugaysaan waa taageerada bulshada caalamka ee idin siisa dhaqaale, kuwaas oo diyaar u yahay maanta inay idinku taageeraan Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo Professor Jawari oo kala noqda madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka. mahadsanidin. wassalaamu calaykum iyo bulshada caalamka oo fiirinayso baarlamaanka cusub cadaaladiisa. waa mahadsantiin.